madaxweynaha galmudug axmed ducaali geelle xaaf ayaa wararka hoose oo la helaya waxay sheegayaan in uu ka tanaasulay murashaxnimadii uu ahaa taas oo hadda ay ilawareedyo ka waramayaan lacagaha uu qaatay iyo sida isku soo dhowaanshiyaha dowladda federaalka iyo isaga loo sameeyey madaxweynaha galmudug axmed ducaali xaaf ayaa ka tanaasulay ka qaybgalka doorashada galmudug ee sanadkan kadib kulamo ka dhacay madaxtooyada soomaaliya madaxweyne xaaf waxa uu la kulmay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo sihayaha taliyaha niisa fahad yaasiin xaaji daahir xildhibaan ubax taaliil warsame iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ka soo jeeda deegaanada galmudug madaxweynaha waxa uu sheegay waa madaxweyne farmaajo in loo baahan yahay xaaf in oday soomaaliyeed uu ka noqdo doorashada galmudug iskuna soo abaabulo qabashada doorashadaas waxaase la qariyey lacagta uu qaadanayo xaaf inkastoo xogaha aan ku ogaanay in malaayiin dollar ay ku kacayso qabashada doorashada guddiga iyo weliba sida ay noqon karaan abaabulka iyo goobaha sida loo diyaarinayo lacagta la siinayo madaxweyne xaaf ayaa waxa ay tahay mid warar kala duwan ay ka soo baxayaan waxaanay u dhexaysaa ilaa 3 milyan oo dollarka maraykanka ilaa 4 milyan sida la sheegay 3dii bishan warqadaas uu soo saaray madaxweyne xaaf waxaa ku qornaa in wixii hadda ka dambeeyey doorashada galmudug ee shirka dib u heshiisiinta ay garwadeyn ka noqon doonto wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya taasoo ka dhigan in uu murashaxnimada ka tanaasulay dagaalka uu ku jiray axmed ducaali geelle xaaf ayaa haatan soo gebagaboobay dadka u dhundaloola siyaasadda galmudug waxa ay sheegeen inuu dhammaaday arrimaha galmudug iyo khilaafkii dowladda kala dhexeeyey axmed ducaali xaaf inkastoo ganacsadahan axmed xaaf dhaqaalo badan uu ka helo dhowr shirkadood uu saami ku leeyahay ayaa haddana xarumo ganacsi oo waaweyn waxa uu ku leeyahay magaalada dubay ee caasimadda isku tagga imaaraadka carabta haddana waxa uu rabaa siyaasadda in uu ka gaaro fursado waaweyn oo u bannaan sidoo kale xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayee xaaf waxay ku qancisay qaadashada lacag 3 milyan oo dollarka maraykanka waana uu ka ogolaaday arrintaas madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare kheyre ayaana dabin siyaasadeed u dhigaya cid weliba oo ka hor timaada falsafadooda siyaasadeed waana midda keentay in xaaf lagu burburiyo awooddiisii siyaasadeed ahlu sunna lagu kala dhantaalo awooddoodii ciidan axmed madoobe oo ay haatan dowladda duulaan siyaasadeed ku qaadayso shariif xasan oo hore lagu kala baxay iyo weliba cabdiweli cali gaas oo laga hor istaagay inuu mar kale doorashada puntland ku soo baxo 8 bishii janaayo ee sanadkan